الرحيم مدن مدحوينه كحيجين مدح رقميديدا مدنياشا قولها الدولة وين يرقي رئيسنا هي راليقة هذا أنا أقول ضمان أنت هالكن شوف توي احترامية مدحدا إذا ملا رقية هوين وحن نقول السلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهبين ومناسبة قيمة وين نوقف فردا هدينا هاي تذكرون الصومالي لاند لحدا سنرد هرتيد انت يدي شوكتي انت كده بيسد الشيبة وتاريخ قيمة وين نوقف فردا قاردنا أفريقيا هدينا هاي دلكي أجوري النقدي عرضكي ومدها الصومالي ده تذكر الصومالي كواحد له دلكي أجوري حرنمي سقاطة وأنا كورينا دلكي لبعض شن مالمود وواحد تاريخ ذو أنا المسيحي كرين وأنا الشرف وين هذا عرض هنا مسؤولية يطلقات أي حبار سنتها مسؤولية دا يطلقات كأنه حبار سنة هاي وأكيد نجا صوت دبالي دجالة دي سكية Somali land إنه دبعتوين بعدين نجارين هذا نمر كأنه كوسون نقولي دل كأنه هويو أينو ندي وحي دان تانا دان حقاد وحي دان تانا دان حقاد دل كأن أينو دسنو أولاد المال إسكندرنو وحي إيطاليا إنه باقية هنتي داير يا مات داير يا أقوم تا أينو كوسو هوينو أو حقو قبنا واتيلهي نقول بركي مركينا أرجوس يدبوا جيسن مركي محابيستي هل كان باقي كواهيد تلك الصوماليا أينان كأرجوسن ومركي أينو إنتينو هويني دور بلود وبنايني جد كي أي دلكو دا الصوماليا يدبوا نقول لهاي وواحد شاركو يالو وواحد ضد الإسلام كيالو وضد كوراليه وحيالان هدي أي يجو حمان جيستين وحينو قوسنا إنكو أينان تيكو دقاقين إنكو أينو كحشون إنا يلين مروي مدنيال مالمهن وحيابا لسلدافية محل حقيلة تجي محل سمية وحا مدحوينها كهاد دونا لكن أنا وحن مرخاتي كاه إن وضح هذا الذي دلك الصوماليا مدحدي الصوماليا يا صوماليا لا يكون يشين دلك جيبوتي إنه ها مد ومدينا الصومالي لاند وسوهوي مقع وين شرف وين يقيب وناكسن وأين الحق لهين waxaan jeclaan lahaa in laga bilaabo maanta wixii ka dambeeya habeen barka 12 caawa aynu gallo munaasabadii sanad guurada 60aad inaynu bilowno horo marka iyo horo socodka dalka Soomaaliland waxa itaal aynu hayno waxa cilmi aynu hayno waxa awood aynu hayno waxaynu ku dhisaynaa dalkeena waxaynu ku muujinaynaa waxyaabaha aynu 30 sanadoodna soo dhaafay qabsanay waxaynu ka talaabsanaynaa oo aynu dib uga sii jeesanaynaa burburkii naga dambeeyay wixiina soo gaaray in badan baynu ka hadalnay maanta waxaan rabaa yar iyo weyn oo waliba dhalinyarada marti uga ah oo dhalinyarada waliba xaq loogu leeyahay in dalkan loo dhisay ee miinada looga saaray ee guryahoodii loo dhisay ee intii baaqi noqotay loo badbaadiyay ee wax lagu baray ee loogu sameeyay wadanka quruxda badan ee dalal badan ay ma jiranayaan inay ku iimaansadaan oo wax nagala dhisaan
ayaanu martooganahay carruurta iyo dhalinyarada waxaan doonayaa ciidanka nus milyuunka ah ee da'doodu u dhaxayso 15 iyo 20 inay noqdaan ciidan ku soo biira dib u dhiska Somaliland oo maxay ku dhisayaan dib indaabyada ay uga turaan hadalka xun ay uga turaan faalada xun oo ay uga turaan cadowgeena oo ay inoo jibiyaan oo ay uga turaan oo ay u eegaan wax weyn ee dalkeena u soo koray wax weyn aynu qabsanay waxyaabaha wanaagsan ilaahay ugu mahadnaqaan oo yiraahdaan alxamdulillah dalka caynka u dhismay baan ku dhashay oo ku noolahay oo ku soo koraya oo insha Allah wax ku dhali doona taasaa waajib ugu ah dhalinyarooy internetka instagramka twitterka iyo 120 kale soo baxay oo qaarkood garanayba magacyadooda waxaan doonayaa inaad ku isticmaashaan inaad isla kaaya barbar taagtaan oo nagala shaqaysaan warka wanaagsan ee Soomaaliland laga fidinayo haddii kale waa biyo culaashay intaas oo maxaan ku raay taala gala xoog baa gala karti baa gasha dadaal baa gala idinku taayirada naga banjarnina haddii kale waanu iska fadhiisan waxaan doonayaa rag iyo dumar haween iyo waayeel culimada diinku ducada noo badiyaan oo waliba dhalinyarada culimada diinkeen kaabadahaas oo kale ka boodi kara iyo culimada diinka iyo madax dhaqameedyadeena la jooga iyo madaxda halka fadhiyaan aanan arkaynin laakiin aan hubo inay joogaan waxaan doonayaa inaynu dhamaanteen isku ciidan noqono ciidanka dib u dhiska iyo hor u qaadida Somaliland yaa lagu taageeraya gacmo ma haya yaa lagu taageeraya ma kala baxna inta taageeraysa inta kale annagu ba badan annaga ka badan ay kulleey waxaan doonayaa inta yar ee yar caajiska ah ee shakigu ku jiro inay nagu soo biiraan oo walana dhaafaan oo talooyin nagu biiriyaan oo xumaanta nooga turaan oo aflagaadada nooga turaan cadowgeena inta ku filan oo qabanaya iyaga ha caawinay wadankaaga caawin aad baad u mahadsantihiin waan qushuucsanahay waan faraxsanahay ducada Sheekh Khaliil inoo duceeyay intay in la eeg baan Soomaaliland ugu duceynayaa waxaan aad iyo aad rabaa inaan u mahadnaqo wasiiradii aanu israacnay iyo madaxdii aanu israacnay iyo gudoomiyihii golaha sare aanu israacnay iyo madaxweynihii aanu waftiga aan ka mid noqday aan raacay wax weyn baa iga kordhay qiimo weyn baa iga kordhay rag mudakara ayaan soo arkay dad daacadaan soo arkay dad afkar af yaqaan aftahamale baan soo arkay dad Somaliland nimadu ka dhabtahay baan soo arkay waxaan doonayaa inaad u duceysaan oo u mahadnaqdaan oo u duceysaan in halka Ilaahay maanta halka wanaagsan u taaganahay meel ka sii sareysay Ilaahay na gaarsiiyo aad baad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh